Brain Medical and Dental Brain Chemistry oo ku yaala xaafadda Soodsii qaybtiisii saddexaad ayaa lagaga furay xaafadda Soodsii khaasatan ka soo horjeedka Green 2 iyo waliba halka loo yaqaan Al-Mukarram waxa uu ku yaala xaafadda Soodsii wuxuu uu ku dhagan yahay Antal Wholesale iyo waliba Love Grill oo maqaaxiyo caan ah guud ahaan waa goob caafimaad oo iskugu jirta agabayadeeda caafimaad oo u dhameystiran waxayna leedahay nooc walba uu yeesho isbitaal waxa jooga dhaqaatiir ku soo dhaweyn doona isla markaasi aad iyo aad u tababaran kuna hadlaya afkaagii hooyo ee Soomaaliga isbitaalka guud ahaan waxa uu leeyahay qaybo aad u kala gedisan haday tahay daryeelka ilkahaaga iyo waliba caafimaadkaaga waxa uu leeyahay qaybo aad u kala gedisan waxa nooga warrami doona oo halkaas عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا لداوانيسا نغو حيران ما شاء الله وحان جوغنا اسبتال كبريم اسل مركاسي لغا فرح حافظ السودسي اسل مركاسي وحا قرب كيغا فرديا دكتور سادام ويدين دونو وحيابها اسبتال كان او قبتو مادامو اسبتال عصبي هاي حافظ لغا فري سادام سودو واتا بالوحد إيغا ورنتا اسبتال كان قرما لفري isbitaalkan gordho la furay usbuuca la furan yahay sax marka wuxuu ku yaalaa Soodsii si fiican gaar ahaan Green Valley agteeda oo maxaa la jiray Green 2 iyo Al-Mukarram ka soo horjeedkeeda si fiican marka maxaan qabanaa maxaa la jiray general maxaa la jiray general assessment of the patient we have dental معناها واحد قبطان وحول بقى قوي كارو اسبيتال we have dental we have lab we have all the services that hospital needs أنا وحول بقى اسبيتال لوجا بهنا هذا قبطان واتهاي وحن كويدينيا ما مركز أركتين باهي loo qabo isbitaalkan anagu ogsoon inay faracyo kale ka furnaayeen oo ka horeeyay kan xaafadda Islii oo kale oo faracina ku lahaydeen ayaa hadana qaybtan kale oo markaad aragteen inay baahi isbitaal jirto xaafadan Soodsii aad u keenteen sax soo diro furnay maxay yeelay istala waynaga rafugin istala kala marka waxaan dhaanay bulshada u soo yeerweyna u soo dhawaatan sax marka ما سيدا أدي شكل عذر كستو مبارك كرتان لابكين أو كله عذر كستو مبارك كرنا لابكين واتس fully equipped مركا ما واحد شقيسان ساعة جوني مس أفري لا تنك ساعة وفري 24 hours فرن أفري لا تنك ساعة فرنتي واتاي أن هذا ولبقى أن أقصنا إن وقت دم بتاعي أن aan dareemayno inaad shaqo ku jirto xilli dambe aan ku nimaanayo habeen ah isla markaasina aan nago oo fiirinayna habka shaqo ee isbitaalka uu shaqeeyo marka inta aad furteen oo soo maalmahan kooban furan beeshinka aad qabataan imsi dhayn afrilatanka saac meeqa soo marta habeenii maalin marka la isku daro inta aad shaqada ku jirto adiga هذا انت شغال في درنا ولي بيشنت بدنا ما نعرفين هاي الاستالكو عزبنيا سفعان فانا اسبوع بسفرين مركا حرجينا كاستمر ايمان دونا بيشنت dad badan inay imaan doonaan anagu ogsoon Soomaali aad u fara badan iyo ajnabiba inay ku nool yihiin xaafadan Soodsii isla markaasina ay in badan ay sameyn doonaan waxaan ku weydiinayaa isbitaalka waxaan soo aragnay qaybo xataa dadka ka caawinayo ilkaha oo kale ina aad haysatiin qaab casri ah oo isla markaas ilkaha marka ma qiimaha isbitaalada kale ee xaafadda ku yaala iyo isbitaalada kale ee magaalada ku yaala aad ka doontiin ajir mise qiimo oo waxaad bixisaan normal oo dadka ilkaha oo kale markaad u sameeynaysan iyo قيمة نوع ولا وصلنا أنا أتليست أنا محل جدك أي affordable قيمة affordable أي محل جريك they can afford what they can afford yeah مركز standard مياه مسا this standard ما شاء الله waxaan kala joog weydiinayaa waxay tahay
Dr. Saadamow inta hadda shaqada ku jirta isbitaalka ee shaqeynaysa oo dhaqaatiirta imise ay dhan hadda shaqada ku jirta oo ama habeenkii shaqeysa ama subaxii soo gasha meeqa dhaqaatiir okay hadda dhaqaatiirka hadda haysano we have pediatricians we have gyne and we have even surgeons on call yihiin laakiin on call macnaha kii qalliinka sameynayay kii dhakhtarka guud ahaa iyo weliba ilmaha caruurta marka haddii qalliin uu yimaado kale dhakhtarka qalliinka waa la wacaya markaas uu ku imaanaya waa tahay isbitaalka ma leeyahay qaybo dadka patientka la seexin karo oo for now it is outpatient masha Allah marka isbitaalada kale aad soo gudbisay maadaama isbitaal xaafad ku dhex yaalay aad u weyn masha Allah Dr. Saadam waan kaaga mahadcelinayaa waraysiga guud ahaan dadka xaafadda Soodsii ku nool iyo agagaarkeedaba qaasatan Green State iyo Al-Mukarram iyo kasoo horjeedkooda ku yaala wuxuu ku dhagan yahay oo aad ugu dhagan yahay bookshopka iyo hadda taqaanaan xarunta security-ka intaba uu ku dhagan yahay isbitaalka Prime mar walba waxaad ugu imaanaysaa shaqaale heegan oo ah inay ku caawiyaan intaad habeenkii intaad ilmahaaga ama xaaskaaga ama caruurtaada ama qof adiga kugu weyn intuu xanuunsada aad meel kale oo la carari lahayd isbitaalka xaafadda lagugu dhex keeno waaye Dr. Saadam oo afkaaga ku hadlaya joogo dhaqaatiir kale waxaa joogto ayagana aan tusi doono marka waxaan leenahay ku soo dhawaada dhammaan isbitaalkan cusub iyo qalabkiisa cusub waxaan oo nala joogto walaashan qaaliga Dr. Nimco oo isla markaas qaybta reception-ka joogto iyo soo dhaweynta isla markaas maxaa Primo Dental Care wuxuu ku tashaa Soodsii sax we offer services badan offer grena like laboratory pharmacy dental pediatrics صح waxaan ku weydiinaa Nimco waxaad shaqeysaan 24 saac habeenii maalin waxaad ka soo horjeedaan meel goob ay Soomaali badan degan tahay iyo dad kale oo ajaanib ah isla markaasina dadka waxaad u soo dhaweyseen isbitaal aad isla markaas oo qiimo badan waxaan ku weydiinayaa isbitaalada kale xaafadda ku yaala maxaa kaga duwantiin waxaan kaga duwanahay we offer like good services صح inaad qalab casri ah ku shaqeynaysaan qalab casri ah and then we take care of our customers on soo dhaweynaa inaad macnaha aad daryeeshaan dadka customer-kaniya isla markaasina soo boqonay waa tahay waxyaalaha aad sameysaan waxaa ka mid ah inaad dadka ilkaha u hagaajisaan oo kaleeto waxaad qabtaan sida Dr. Saadam noo sheegay dhakhtarka caruur ah haddii loo baahdo kii qalliinka oo asagana la wacayo oo isla markaas imaanaya guud ahaan intaasoo service aad bixisaan waxaan ku weydiinayaa waxay tahay mana tusi kartaa qaybaha ku shaqeysaan okay nacana ham ku soo aadno waxay tahay this is our laboratory halkani waa laabka ay ku shaqeeyaan isla markaasina ay dhigaga iyo lagu baaro isla markaasi qalabka kombiyuutarada yaalaan waa tahay qaybtani waa qaybtaas waa washroomska macaamiish markay imaado waa tahay intana waa qaybta haddii loo baahdo suuligii uu isticmaali lahaa ama dadka yimaada we have two dentals this is the dental VIP dental one qaybta ilkaha halkani waa qaybta ilkaha isla markaasina dadka ilkaha markaas ama ilkaha hadii ku xanuunayaan ilka lagu xirayo ilka lagu cadeynayo iyo intiisa qalab casri ah yaala VIP dental one la yiraahdaa marka halkii mar meeqa patient camalaad gali kara hal qof soo hal qof laakiin laba dental qabna haduu mashquulsan yahay hal kale haduu mashquulsan yahay mid kale dhinacaas oo ma sha Allah dareemayna dhinacaan soo aadayna dhinacaan hadan soo yaraadno dental 2 waaye kan waa dental 2 kan iyo kaas labadu waa VIP dental VIP way labadu ma sha Allah qalab casri ah yaala saad arkayso mashiino casri ah
أنا waxaan ku weydiinayaa haddii qof patientka oo kaleeto ilkihiisa waxoogaa kan kaleeto uu wiswis ka galo ka horeeyo macnaha maxaad qalabkan ku sifaysan ama lagu dhaqaa daawooyin casri ah jira qalabyo casri oo badan jira صح sifa alaafana kuwana ilkaha looga dhaqaa meeshaan qof markuu gooska looga yahay wasaqda iyo cadka meeshaan iska halkan gaaskii halkan waa qaybta dadka lagu duro ama qofka markaas la rabo pressure-ka lagu baaro lagu feeriyo waa tahay masha Allah soo gal wow حتى ميسانك أيالو العبراي كان حدي هبينكي حلدن بقف دي كركو كعو أما سنكركو كعو وماشي لو في ذينا إسلام مركزي إسلام دوينك وغوري واتاي isbitaallo ma jiraan oo waaweyn waxaan kusoo xaruntan Prem xarunteeda kale in isla ku taalo oo ayadana intaan ka weyn oo xataa dhalmada iyo hooyada iyo leh marka isbitaallo kale oo hadii qofka xaaladiisa ay sii saydo kale isla markaas hore aad ugu gudbisaan ma jirta way jiraan aad weyn waxa lagu keenay hadii aad degantahay xaafadda Soodsii isbitaal casri ah isla markaasina wax walba ku qabanay dadka jooga afkaaga ku hadlayaan af Soomaaliga ku hadlayaan isla markaasina faa'iido badan ay ku leeyahay aad weyn waxa ku soo dhaweynta joogto isla markaasina aad dadka oo qaabilaysa walaasheen Dr. Nimco waxa jooga Dr. Saadam oo hadda shaqo ku jira qaybta hoose ee farmashiga iyo chemistry-ga waxa jooga in badan waa isku ka aragtay ayagana loo caawiyay isla markaasina shaqada madaxa isla markaasina inta badan isbitaalada Prem isla markaasina qof caan ka ah xaafadda Islii aad loo wada yaqaano in badanna waa aragnaa isbitaalada waad balaariseen aad waxaan joognaa xaruntiina Soodsii bal dadka waxyaabaha u soo kordhiseen oo faa'iidooyinka leh in aad guryahooda ugu geysaan goobaha caafimaadka bal waxaad iga warantaa qaybtan cusub maxay qaybta xagga kaga duwan tahay horta soo dhawaad ilka casa maanta waxaan ugu imaaday qaybteena Primotri oo Soodsii ku taasha waxay ka soo horjeedaa Green State waxa waaye waa qayb weyn dhakhtarin specialist soo fadhiistaan dhakhtar walba u baahatay soo fadhiista pharmacist waa well equipped dhakhtarin fara badan ay joogan marka maadaama xaafadda oo Soomaalida tahay istaal oo loo baahan yahay qasab ayaga laftirkooda loo keenayaan waata waxaan ku weydiinaa waxay tahay isbitaalka aan soo aragnay Dr. Nimco iyo Saadam iyo soo wareystay waxaan ku weydiinaa waxay tahay qaybahan hadda isbitaalka oo la furay oo cusub maxaad oran lahayd dadka reer Soodsii inay macnaha ay isbitaalkan u yimaadaan reer Soodsii waxaan dhilahay waxyaalo badan chance badan ka helaysin inta dhakhtarinta Upper Hill iyo maxay loo aaday Kenyatta inta soo fadhiistaan specialist wado xaafadaada kugu imaada adoo ciyaalkaada soo siixsatay 5 daqiiqo wax walba lagu sameeynaa ku soo dhawaada waa tahay aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa guud ahaan waxaan ku leenahay aad ayaad u mahadsantahay fanaankeena caanka CK Boy ilka casa noo soo dhawaada Primotri ku soo dhawaada